بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan jeclay maanta inaan ka hadlo dhowr qodob isdul taago mid waa mid alxamdulillaah rabbil caalamiin safarkii aan ku tagnay labada xusbi iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale oo ah ka soo jeedayna baarlamaanka ah golaha wakiilada ah wuxuu nagu soo dhamaaday guul ayuu nagu soo dhamaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin safiiradan aragnay iyo diblomaasiyiintiba Soomaaliland aad iyo aad bay soo dhaweeyeen doorashadoodii hore tan soo socotana iyagana aad bay noogu booriyeen iyaduna ay saasoo kale u dhacdo insha Allah taala si nabadgelyo waxay hadan intan maqneen waxay yimi halkan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida ee Itoobiya waxa laga bixiyay faalooyin badan baa laga bixiyay waxa weeye horta anaga reer Soomaaliland dawnahay jumhuriyadda Soomaaliland siyaasadda dibadda waxay ku fadhidaa jaar wanaagsan iyo ku fadhidaa in wadamada jaarka ah si nabadgelyo ah oo walaalnimo ah inaan kula noolaano inaan wadana gudihiisa faragelin ayaa tay siyaasadda anaga Itoobiya xiriir fiican baan leenahay deris baan nahay 450 kilomitir baan wada waagnaa dekedeedu waxay u furan tahay Itoobiya u furan tahay iyo wixii ka sheeyaba wanaga dad balaadhinano arrimaha gudahooda ma dhaxgelin laakiin waxaan jecelahay in nabadgelyo ku noolaadaan waxaan jecelahay arinta ka socda dagaalka ka socda hadda Itoobiya sida adduunka oo dhan qabo in wada hadal ku dhameystaan oo danta guud la eego oo ficil laga saaro shakhsiyaad isnacab iyagu ay isku jeedaan inay u turaan shacabka Itoobiya waa halbowlaha geeska Afrika way halbowlaha way nabadeedu waxay ka tartaa nabadgelyada iyo deganaanshaha geeska dhibaatadeedu waxay noqon kartaa dhibaato geeska Afrika ku fita sidaa waqti xil weyn baa idin saaran labada qolo iska soo horjeeda xilka idin saaran yaana ficilka dhexdeenu idinka dadin ee ku talana waxaan kala joogaa dul taago waxa jira halka nin la yiraahdo boqor Usmaan Buurmadow boqorku uu isxilqaaday shakhsiyan iyo isxilqaaday wuxuu dabcay inuu Soomaaliya si ay doorashada dadban u gacan uga geysto oo si doorasho ugu dhici lahayd ay ku wada kalsoon yihiin way salqaamay dadkii ka yimi laascaanood ee si degdeg ah loo tarxiilayna xal buu ka bixiyay si fiicanna waa loo soo dhaweeyay laakiin hadda waxaan maqlayaa ninkii uu soo gurbaday ee isxilqaamay ee ka soo xilqaamay magaalada Imaaraadka oo laga yaabo in dad badan reer Soomaaliland aanay arintaas aanay ku waafaqsaneen naftiisii u bareeray inaan waxaan siyaasadda Soomaaliland ahayn uu ka soo jeedo uu ku dhaqaaqay oo shakhsiyan inay istifaa keenay inuu ku soo gurbaday ay maanta aflagaadeynayaan waxaan u sheegaynaa haddaba leedin xaal haga bixiyo ina goodane idiga waxa dila jooga kuwii gamcaha dhiiga ku lahaa ay jooga war Xasan Sheekh soo maaha ninkii Caliim Samatar oo BBC ka sheegay ana amray duqeyska Soomaaliland ninkii intuu ka soo qaaday Mareykan asqaran u sameeyay Soomaha xamarka ku aasi war farmaanshahan xuma idala socday dusha iska haysa Soomaha ninkii dadka nolosha ku gubiyay tukay la saswirnaa Soomaha maxaa inta uga hadli weydeen inay dhiig lahayn nin baa ka dhashay waxa ay doonayeen waa ka dhintay waa maqli jirteen guulode wuxuu ku hadli jiray ka imaka gacan yara la taliyaha
ortoble ahaan jiray doobiilaha afweyn laakiin ka dhigay wasiirka howlaha guud mar ilaa in la xasuuqo ku fiican weydii la jooga dani waxa shahaadada siinaya Morgan ninkii uu ka xishooday ninka Mareykanka inuu salaamo ee loo bixiyay the butcher of Hargeysa waxa dani warqad siinaya ويدك حواشي محمد سياد بري كدو الأوي يقول في حسني نكي بريد حسوقي الشعب جدا جنا عدالي مريحان وكسر كار قديئة ولي ما هرشان هويه كو هذا يعني موس بغربود وهنشبيه ولي ما أركتنين هويو يلي وارني ما كاسي هاي السنوات دتكي سومان هذا الساق حسوقي موجود جرا ما يمجر وربنا أريد عقد لهن وربنا كيدي سو جرومدا يدي كو أفر سنة محمد سياد بريد دولدي سينا يريد كل حبوري قولوا ياشي وبحيي حقوقة مواطنين تقول بحيي قولوا ياشي حتى واحد قال دايو ورمنيك يدي سو غرمدان ما انت فيقو لهدهي ابرجاس بخي maxay aburjeeso bixin waayeen kuwan inta ila ag jooga ee xasuuqi faraadiga kule ee adduunka oo dhan yaqaanay war criminals yihiin waxaan leeyahay isku xishooda magaaladiina waa la isku xukumaya sida inta loo galay Cabdirashakuur saa loo laayay macaa'inan meel lagu asaan la gareeyay qaybdiid xaaskiisa oo musku jir lagu furay dhiigayaasha xinayaha annaga nagu hadashaan buur madow aad ku qabanaysaan dhulkiina magaaladiina la isku xukumo ku qabsado waxaan xishooda waan leeyahay xishooda baan leeyahay dantiina qabsada inta aad eegisaan anaga diirada nagu eegisaan waa dantiina qabsada